السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بامور كحرة بكتير كوجا ليدا سكشن ليدا ما مره السكول كا ما راح لو برشة والدين تقيمها يقايها له أرض أصحاب تيدات كانوا جعلي هو أصحاب تيدي ورا سكول في جوتا مركل وحينكم السلام يا سلام كإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رناهانتي قوبتن وقوب كمدا قوبه نستي مستقبل كأنه وحبرشة وأنا حسوس تالك المالين تقدم بيسي كيسي بيدا نقصه بالنج وقوبتها المستوى ونقلها اللي أنه اللي ما أنا نسكت كأنك وحن إسلاها أيضا أنا وحب اللي إيه وأنا اللي إيه هم بين نورك ودمان تطوي وضقاتين لكن وحن جعلها ينقصه والله بقى مصدق حريفين الله تعالى runtii waxaan islaahay waxyaabihii horumarka keenay ee sideetan iyo sagaalka arday ku baaseen ugu horeyn inay ahayd cabsida Ilaahay tabaaraka wa tacaala ay noqdeen dad Ilaahay ku xiran dad Ilaahay ka cabsada kaalmana ka dhigtay wax quraanka Ilaahay tabaaraka wa tacaala ay dareemeen in lagu guuleysan karo Ilaahay ka cabsigiisa waana mid kamid ah waxyaabihii aan ku guuleysan waxaan halkan quraan ku akhrinay ilaa 6 goor oo marra halkan aan ku khatinay quraankeena wixii labaad ee guusha horseeday wuxuu kamid ah qalbi furnaansho ka dhaxeeya ardada dhaxdood oo dhamaantood ka ugu yar iyo ka ugu weyn ismaqal ka dhaxeeya uuna jirin cid ama macallin ama maamul dawlad ka riixay iyagu ahayn kuwa isriixay oo maamulka iyo macallimiinta iskuulka ardada maanta jirtana oo qalbigooda ku soo dhacay marnaba ayna ka faaruqin qalbiyada midna waxay ahayn kuwa isku qalbi furan waxaan aaminsanahay inay ahayd qalbi furnaansho wax guul keeni kara waxaan xasuusanayaa ee mastaha hadal uu nadii jiro maamaha ولسه هو ستتاس أنا نون نقطي وضع أنا فرق أنا تاجد عن قاد وحكملها بركونا ما المكتوب لو يكون يأثر يتبقى أرددي جوكتين بركي هو الرسول المستنى ولا تاريخ بيسول بكسوم بين إذن كو كلام نقم كرتان ميلي كرتان لكن هذا الله اسمه ما إن هذا الله عقاب ما تبنو كينه هذا الله وحين هاي النبي رجليه اسكون الدين إن أنت أبنو عن فلايا إن أنت أبنو أيضا إن قصدي تاريخ السول بكسوم بين وعند waxa saddexaad ee aan iskuulka horumarka ku gaadhaynahay dadaal ka yimid ardada waalidiinta iyo macallimiinta ay hogaaminayaan maamulka iskuulka dibidka iyo senior iyo macallimiinta dhamaantood waxaan islaahay inay ahaayeen ardadii ugu horeysay taariikhda iskuulkan ka dambaysa 89 canug ku xarunta waxbarashada taariikhdaas maana iska helin waxaan noo fududeeyay waa Ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbi furnaashaheena iyo ismaqalkii waalidka iyo macallimiinta iyo maamulkeena aan maqalnay waxaan filayaa iskuulka markaan ka tagay maanan kaga tagin wixii aan soo banay sifaan u noqono kuwa wixii ay bilaabeen ayaga ay ku dhamaadeen laakiin waxaan muujinay inaan u wacna ardadii iskuulka markaan naga dambeysay oo kalaaseedka u soo baadisay aan la fariisanay u sheegnay wadadii aan ku guuleysanayna wadada ay ku guuleysan karaan hawshii iskuulkan aan gacanta u galin ma jirin cid shaqada noo soo bisanaga ma jirin cid noo sheegtay laakiin annaga ayaa garanay inaan arintaas soo galin waxaan u sheegnay dhaqanka kula dhaqmadaayeen macallimiintooda ardadooda waalidkooda waxaan filayaa tusaalahaas oo dhan waxaan u siinay ama iskuulka uga bilowno waxay in waxa aan bilownay markaan aragnay in la suubinayo waxay noo noqonaysaa sharaf iyo guul markaan wadooyinka marina ay dadku waxa xasuustaan laakiin marka ay noqoto shaqadan annaga bilown in annaga nagu dhamaado waxay noqonaysaa wax qof ku bilowda qofna ku dhamaado taasna ma noqonayso wax bulsho caawinay waxaan isleeyahay quraankii ismaqalkii macallimiinta ardada in dhamaantood ay hay'ad waxyaabaha aan ku guuleysan waxyaabaha taariikhiga wuxuu in ardada qaar kamida haday macallimiintu damcaan inay yara diidaan mid ardada kamida intuu dhoo amarka siiyo inay ka amar qaadan jireen dhamaantood ay ahaayeen walaalo isjecel ilaa haddana iska amar qaad waxaan filayaa kuwa naga dambeeyna waan gaarsiinay kuwiina hadda xaadirkaana waa idin gaarsiinaynaa walaalo ka cabsiga iyo qalbi furnaanshaha iyo isku xirnaanshaha iyo dadaal يا هرمركنا وعن فلايا وعن القوة والدين تضبر وعن فلايا يديكنا النقطة قفك هيستهوي وقف قنئة قفك هيستهوي يا آباء يا عافمانا وقفك أوتاجر سنة الدنيا وعن فلايا مركم كتب تبدلين يا هذا الكيل دمان وحيابك بدن بين سكول كان كاتين وعاكم إذا ينفهم كات وقرح